baarlamaanka dalkan Sweden ayaa ogolaansho rasmi ah siiyay xukuumadda ra'iisul wasaare Stefan Löfven kaasoo ay xukuumaddu qaadi karto wixii tallaabo ay laga hortagayo xanuunka coronavirus. talaabooyinka ay xukuumaddu imika qaadi karto ee ogolaanshaha loo siiyay ayaa waxa kamid ah inay xiri karto hodheelada cuntada iyo maqaaxiyaha isla markaana ay joojin karto gaadiidka dadweynaha sida basaska iyo tareenada iyadoo aan soo marin baarlamaanka oo markii hore sharci ahaan xukuumaddu aanay qaadi karin talaabooyinka ilaa ay ogolaansho ka hesho baarlamaanka. xukuumadda Sweden ayaa sidoo kale markii ugu horeysay dalkan Sweden ogolaatay inay shaqo geliso oo ay soo amaanaysato isla markaana ay ka faa'iideysato in ka badan 2500 oo dhakhtar iyo kalkaaliyaal caafimaad kuwaas oo aan lagu xidhaynin shuruudihii markii hore ay xukuumaddu ku xidhi jirtay dadka caafimaadka ka shaqeeya oo aad u adkaa. dalka Sweden iyadoo maalinta ka dambaysa ay ku sii badanayaan dadka ku dhacayo xanuunka coronavirus ayaa xukuumaddu sheegtay inuu ilaa imika ku dhacay 43 caruur kuwaas oo ay da'doodu u dhaxayso sanad ilaa 9 sanadood. hay'adda caafimaadka ayaa sheegtay in ilmihii ugu dambeeyay maalintii shalay la dhigay dhakhtarka magaalada Uppsala kaasoo da'diisu ahayd dhowr bilood oo kaliya iyadoo dhakhtarada isbitaalkaasi ay maanta sheegeen in ilmaha xaaladiisu ay soo fiicnaanayso. wasaaradda caafimaadka ayaa xustay in ilaa imika uu xanuunka coronavirus ku dhacay dalkan Sweden dad gaadhaya in ka badan 7200 oo qof iyadoo dadka ilaa imika dhintay ay gaadhayaan 600 oo qof kuwaas oo 110 qof oo kamid ah ay dhinteen 24 saacadood ee u dambeeyay iyadoo dadka xanuunka u dhintayna 70% ay yihiin ragga. dhinaca kale in ka badan 900 oo macallin wax ka dhiga iskoolada wadankan Sweden iyo dad badan oo shaqaale ayaa xukuumadda Sweden ka dalbaday inay xal u keento iskoolada hoose dhexe iyo waliba kuwa xanaanada oo ilaa imika furan oo la dhigto. macallimiinta ayaa qeyladhaanta u diray xukuumadda iyagoo xusay inay aad u adag tahay in caruurtaasi ay fuliyaan ama ay ku dhaqmaan nidaamka lagu ilaalinayo caafimaadka ee inay caruurtu kala fogaato ama aanay istaataaban. macallimiinta ayaa sidoo kale ka cawday shaqaale yaraan iyo in aanay haysan dad ku filan oo caruurta kala ilaaliya si aan xanuunkaasi dhexdooda ugu faafin. shaqalaanta uu keenay xanuunkan coronavirus ee dalkan Sweden ayaa gaadhay halkii ugu sareysay ilaa iyo inta la xasuusto iyadoo in ka badan 25,000 oo qof ay toddobaadkii hore oo kaliya ay ku dhacday shaqalaan. wasiirka caafimaadka Sweden ayaa sheegtay in xaaladdu aad u xun tahay isla markaana aanay hore u aragtan oo kale taariikhda cusub ee Sweden. xaaladda shaqalaanta ayaa la filayaa inay sii badato oo ay gaadho 10% haddii uu sii socdo xanuunka coronavirus ee wadankan Sweden. Barkhad Cabdilaahi Maxamed, Home Cable TV, wadanka Sweden.